Madaxweynaha dalka Uhuru Kenyatta ayaa ka codsaday kenyaanka in ay ilaaliyaan guulaha la gaaray sanadkii dhamaaday ee 2021 inkastoo uu sheegay inay caqabado jireen xilli uu xalay jeedinayay dhambaalka sanadka cusub ee 2022 ayuu shacabka kenyaanka ku boorriyay in hoggaamiyaha ay doortaan uu noqdo mid cadaaladeed oo aynan ku dooran magac kaliya. waxa uu intaasi ku daray in dadweynaha aysan hoggaamiyaha ku dooran siyaasad balse ay ku xushaan mustaqbalka jiilka dambe waxa uu uga tagi lahaa. mudane Kenyatta ayaa rajeeyay in sanadka cusub ee 2022 uu nasiin doono rajo ka wanaagsan midkii tagay ee 2021. waxa uu sheegay in Kenya ay noqon doonto mid ka wanaagsan sanadkii dhamaaday. hoggaamiyaha ugu sarreeya dalka ayaa soo hadal qaaday guulaha uu maamulkiisu gaadhay 9 sano ee ugu dambeeyay isagoo tusaale u soo qaatay guulihii laga gaadhay dib u dhacyada dhanka kaabayaasha dhaqaalaha, helista daryeel caafimaad oo jaban iyo dhanka amniga. And over the last 9 years, my administration has built on the foundations of the previous 3 administrations, adding our bricks to theirs, so that the 2022 dream and beyond can be realized. This year, my administration continued to bridge the deficits that actually matter. We bridged the infrastructure deficit. We bridge the deficit of accessibility to quality healthcare and affordable healthcare. We bridge the deficit of a weak agricultural regulatory framework. And we also bridge the deficit of insecurity by scaling up on our security sector reforms, and we vastly improve the ease of doing business in Kenya, making it easier for Kenyans to thrive in enterprise. waxa uu sidoo kale sheegay in maamulkiisa uu wax badan ka bedelay fududeynta ganacsiga dalka. madaxweynaha ayaa sheegay in sanadka cusub uu qaranka ku sii dhawaan doono dhaqangelinta adeega caafimaadka guud ee loo yaqaan UHC iyadoo loo marayo barnaamijyada kala duwan ee la hirgeliyay. waxa uu ugu dambeyn sheegay in dhowr mashruuc oo dawladeed la dhameystiri doono sanadka cusub.